maxamed cabdulaahi farmaajo markuu halkaasi ka jeediyey khudbadiisa taariikhiga ahayd ayaa baraha bulshada waxaa ka dhacday arrin lala yaabo. arrintaasoo noqotay duco iyo taageerid iyo qaar dhahaayo sida tan. xataa waxaa soo baxay hashtag la yiraahdo farmaajo taageeradii farmaajo. hashtagaasoo baraha bulshada qabsaday maanta noqday tarankii adduunka ugu caansanaa. maxamed cabdulaahi farmaajo maanta khudbadiisa waxay noqotay khudbad taariikhi ah oo halkaas uu ku cadeeyay waxyaabo badan ee ummadda Soomaaliyeed shaki ka qabeen. maanta farmaajo ummadda Soomaaliyeed shakiga ayuu ka saaray. khudbadiina si fiican ayuu ugu soo jeediyay, ummaddiina wuu qanciyay. halkaasna wuxuu ka helay taageeradiisna way ballaaratay. xataa waxaad arkaysaa meel walba magaciisa, sawirkiisa iyo ducooyin oo meeshaasi meel walba yaala. xataa waxaad arkaysaa qaar ka mid ah mucaaradka oo inays iloobeen magaciisa taa maanta afka ka qaadala, gacmaha taa ka qaadala, waxa uu dhiman inay ku tasbiixsadaan. xataa waxaad arkaysaa sorry qoftaan iska raxisanaysa. xataa waxaad arkaysaa dad mucaarad ka mid ah maanta halkaas inay cili waayeen si caan u noqdaan meeshaas la soo istaageen Firimbi. maxaa yeelay Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaan caan noqono, marka si Allah caan ku noqonaba ahaan noqotee waa raadinaynaa. waad aragteen banin la dhihi jiray alla aqoon wuxuu ahaa meel ka soo baxay cidna aan garanayn. hadduu aragta waxaa loo yaqaan Xasan Firimbi, hiblaayo tan magaceedna lama yaqaanay, waxaa loo bixiyay Firimbi 2 iyo magaca lafkeena aan soo qaban. marka Soomaaliya farmaajo maanta wuxuu muujiyay inuu yahay haliyey, inuu yahay wiil hoog, inuu yahay kii loo baahnaa, inuu yahay midayihii Soomaaliyeed, inuu yahay kii naga maqnaa, inuu yahay nin Ilaahay noo soo diray. marka farmaajo Soomaali waxay ku leedahay ducaad qabtaa, waa lagu duceeyay, haquusan garabkaaga taaganahay sidaa iyo midnimo adag. waxaan leenahay dadkaas kale oo mucaaradka ana waa inaan tallaabo sharci ka qaadnaa, waa inaan ku soo qabanaa gacan bir ah, waa inaan xabsiyada dhignaa sidaas shacabkaaga ku leh. aniga ma aha, taasna waa taageeradii shacabkaad ka heshay. farmaajo arrinta maanta aad samaysay, arrinta lagu sameeyay tanaasulkaaga wuxuu kalifay inaad hesho taageero ballaaran. shacabka xataa haddii waxay diyaar u yihiin inay garabkaaga noqdaan, inay noqdaan baalashaada, inay noqdaan kuwii hortaada wadanka dadka iyo diintooda iyo inay u huraan. dhacdooyinka maalmaha Soomaaliya ka dhacay waxay midayeen isku aragti ka dhigeen shacabka Soomaaliyeed oo midoobeen. waxay aragteen xaqiiqda meeshan jirto oo la qarqarnaya. marka Soomaaliya way midowday, asxaan u sameeyay mucaaradka farmaajo, mucaaradka asxaan ku sameeyay la soco waxba ku meesar dhimeena. Soomaalida ay midaysay, ayagana Soomaalida ay midayeen, danahaas iyo wateen waxay noqotay dana Soomaalida ay ku midoobaan. wayna mahadsan yihiin. cabdulaahi farmaajo wuxuu muujiyay Soomaaliya inay tahay dal xur ah, laakiin dadkeeda ayaa u dhashay ayaa waxay yihiin dad u shaqeeyo dad dawlado kale mise inay yihiin shisheeye kalkaal. maxamed cabdulaahi farmaajo sheekadiisa maanta waxay qabsatay, waxayna ku faaftay baraha bulshada, waxay noqotay hadallo lagu qoro taariikhda. hadalkaani khudbadii maanta lagu qabtay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay noqotay khudbad gasho taariikhda Soomaaliyeed. arrinta maanta dhacday waa la qoray. maxamed cabdulaahi farmaajana saas wuxuu ku guuleystay ku hantay oo ku degay qulubta Soomaali badan. xataa waxaa jiray dad badan oo ase ka soo horjeedo oo mucaarad ku ahaan jiray oo maanta maxamed cabdulaahi farmaajo ku soo biiray. marka Soomaalidu waxay qabteen arrin la yiraahdo challenge farmaajo again. kadib waxaa dhacday mucaaradkii xataa inay samaystaan arrin la yiraahdo out farmaajo. macnaha mucaaradkii xataa maanta waxay hadal hayaan ee carabka iyo gacanta iyo indhaha iyo sanka iyo dhegta ku hayaan sheekada maxamed cabdulaahi farmaajo. sida loo jeedo maxamed cabdulaahi farmaajo taageerihiisa way badatay, Soomaali badan u duceynayso, waa nin duceysan. inuu duceysan yahay dadkan oo dhaamo waxaa ka muuqato hadaladiisa iyo khudbadiisa maanta oo jeediyay. dad badan ayaa waxay leeyihiin ninkan waa nin daacad ah, dad badanna waxay leeyihiin ninkan waa nin duceysan. dad badan ayaa u duceynayo. marka maanta baraha bulshada waxay noqotay duco iyo ammaan iyo waxay noqotay faalo laga sheekeenayo maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed. maanta waa maalin taariikhi ah. xataa mucaaradkii xataa waxay ka sheekeynayaan ee hadal hayaan maxamed cabdulaahi farmaajo. halow ana waxaan dhihi lahaa dadkan oo hadalku taan u batay farmaajo inay ku tasbiixsadaan, inay soo wees qaataan. marka waxaa leenahay farmaajo lagama guulaysan, waad guulaysatay, waxaad hanatay oo aad degtay qulubta Soomaalida. ummad Soomaaliyeedna maanta waxaad ka heshay garab. qaar badan waxay ku leeyihiin anaga waxaan nahay garabkaaga. marka maanta waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay u sii muujiyaan, inay garab istaagaan madaxweynahooda.
waan aragnay dadkan waxay yihiin inay yihiin dad danaystayaal ah oona u shaqaynayo shisheeye marka maanta wixii ka dambeeyo waa inaan noqonaa ciidan heegan ah oo diyaarna u ah inay difaacaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda khudbada madaxweynaha oo jeediyay waa khudbad taariikhda gashay laakiin waa khudbad murugo iyo naxdin iyo niyad iyo naxdin badan maxaa yeelay ayadan waa way diideen way ka soo horjeesteen waa lagu fashilmay waa khudbad negative miiran ah waa cabsi marka dalka rajadiisa way xun tahay laakiin tanaasulkay ugu horeeyay horta meeshaas uu ka bilowday waxaan damacnay in aan dib ugu noqono dowlad goboleedyadii Puntland iyo Jubbaland yaa diiday muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn nasiib darro labadii maamul waa diideen waxaan sameeyay tanaasul kale iyagoo iga diiday halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan Samareeb ugu tago waa idinla tashaday waxaad siiseen green light bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay Samareeb 3 nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen markii aan quusanay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyay hawshaan annagu waa tanaasulay haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno waxna ii keena waxna qaat taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobeeyeen waa ka bii diideen nasiib darro taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tegey tii Dhuusamareebna waa ka tegey tan waa tii saddexaad marka haddaba 17 Sebtembar heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii Samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo madmadoobaysta waxa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyay waxaan ku iri qol gala wax ku soo heshiiyo qol bay galeen muddo waxay ka shaqeynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waa iga diideen iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobaynin waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii ay soo dhameeyay ama ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idin kuga harsan haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqotaan ma yiraahdeen kama noqonayno wixii arrinno waa helnay waana ka adkaanay waayaani waxba kama qabo waa tanaasulaaye waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan waxaan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixina xitaa heshiis ku dhaafmaynas afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyay haddaba si aad ah iyo uga dibad gareeyeen waxaad ku aragteenna saas iyo ku dhameeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen calaa ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inay raali ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday Puntland iyo Jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay adduunkan ugu ceebeenna shacabka Soomaaliyeed san qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyey waxaan ummadoo dhan baa arkaysee hala soxo waa la diiday waa lagu fashilmay waa suuroobi weydi markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad
arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno. xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan. anugu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay, laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin. waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno. nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay. waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar. waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 Sebtembar. taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka.